بسم الله الرحمن الرحيم مجيء عبد الرحمن بوال محمود أو كم قعدير عكو شرع أمان أمد الصوماليات وناق الجعل وحاروا إن أنا هل كان أنك السلامو مركان أركي دين الإسلام كإنه يفرسوا أمد المسلمين كإنه وناق سمايان إلهي سبحانه وتعالى أنا وقرآن كي سنوغو الشيء قف والبقف كي دنبك قالوا إنو عفيو إنو أجر بدن يهي sidoo kale intana diinteena wanaagsan ayna farayso in wanaag la sameeyo waxaan halkan maanta aan u soo waxay taa arin naqoseystaniya xaaskeyga Masluux Saalax Suleymaan aheed oo hadda rabo inaa wanaag iyo kala gaceel aan ku kala dhamaano dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka shaqeeyaan wanaaga ma jirto maanta qasab ma jirto wax xoog la dhahaayo waxa adduunkan uu ku dhisay waa wada hadal iskaashi isfahan هوري سومالو داوي أن هشينو وأن وضع هذلنا نبض وحكي ونكسن ملها نبض الناس لنوغي قف والبو مسلم أنا وحا ونكسن إنو نبض كالشقايو أنا جددا آمين سنة إن حاسكيجا أن كحجينا لعق ددا آمين سنة ددا أنا إيجا آمين سنة إن ننحن أهاي ددا آمين سنة أنا إن دنبيلة أهاي لكن أنت صوتن إن أنا إهين أيان دونيا inaan u xaqiijiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si walba muuqaalkan u daawanayaan waxa rabaa qisiir oo dhacda inaan soo qaato waa ogeeyay 2020kii ama 2021 iyadoo magaaladan albaabada la isku dhuftay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo uu tanaasulay taas uu u tanaasulay ilaahay dartiis iyo danta qaranka aniga marka maadaama shakhsi Soomaaliyeed aan ahay xaaskeyna aan isqabanay aan isdagaalnay arintii media ay timaaday wax walbo dhaco waa wax ii qornaa maanta waxaan go'aansaday inaan raaligelintaas aan aqbalo si wanaag ahna aan ku kala tagno ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego inaan ahay nabadoon Soomaaliyeed inaan aniga aan ka talinaynin dagaal iyo in la isburburiyo in khilaaf uu dhaco sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa asxaabteyda dhalinyaradii intaanu dhan waqtigooda ii soo horay saraakiishii madaxdii mas'uuliyiintii iyo qof walba taladaas siinayay raaligelintaas waa aqbalay beeshayda iyo ummadda Soomaaliyeedna waxa u sheegay in raaligelintaas ay qaateen walaashina wax u dad aan qabo السلام عليكم وعليكم السلام سواء مeel baa joogtiin maanta anaga wada faraxsan oo wada qosleena walaalkay Cabtoosh waa kana si farxad leh arrintan oo dhamaatay dadka xumaanta jecel oo maanta in aniga si isjilna ka shaqeynayo dhaxdiina ku jiray way soo dhamaadeen hadda aniga walaalkay si wanaag aan ku kala baxnay oo farxad oo bil kamaale hadda walaaltinimo يعني guur bis lagu ma walaaltoobo walaaltinimo Soomaalinimo hadda wax walba ii soo baahan وأنا حقيقة البلاد اللي قلتها هاي شيء ولا كلمة وشلون حاسكي ساعة ما عندنا ولا شيء ساعة هاي حتىش أرنكاس محتاج أنا أرنكاس والخوا وواعفية حاسكي جوهرة عندنا ماذا حلواسي وحاومات علمية تليه كحجان سلدك بوليس كترمد وبري مستر أبابو تفك الصوماليين هالفرينا أو جرا فرين تسوء أفضل بقى جعل جور المسلمين جور أصير كوري إنه يكون إيمان يسوع يسوع عشاننا لوضعنا أصحاب تينا أهل كينا قراودينا أفضل بقى نلمرك سنة أنا كمان تدي أكل دمان عيب معان ولي جدا لسكور سنجري وأنا لسكور جري وحول بولا لتنا مذاك ونكسل دين الإسلام كقوة لوني إذا إلهي بدل خير قواسيو أنا إلهي بدل خير قواسيو صومالي dadka lamaanaha ee media ku jira kale ha kala geynina maslax wax uqdado ku qabo malaan aada u mahadsan tahay wax walbo iga soo baato garab Soomaalinimo ku siina ana xumaanta daaro mar hore ku xumeela dada marka xumaanta jecel ilaahay ka cabsada leh أنا ولاك يا تاي حماكم خلاص السلام عليكم وعليكم السلام Soomaaliyeed meel baa joogtiin عرالبين بتتبحنايا عرمها بابليك السوشيال ميديا دح سعودة خاصة أنا يسوي وراء وما تسنو وناك أنفق البحناي جعل ما تمسنا جبكي سجعل حالينا يخف أولادي نوايا وما أني أصير بعدين سيد أحمد تيجي كوحوني لمدرين حتى لو ولا أنفق الضمانة قفك يعني أنا قفك أنا دحدين وحني قال معهم أنا قاعد شال إسقى قناة أسبوع سنة حتى أنا قاعد سنة وقف البحناي
wiilka walaalkayga halaga haro anina iga haro xumaanta idin dawdiin dhaxdeedana wax niga gal ma lahan waxa kale oo raaligelin aan ka bixinayaa mid aan dhahay banaankan u dacwoonaya dowladda Soomaaliyeed dadka walaalahayga ah waxa iga raali noqdaano aniyoo liihandadeenin aniyoo dhibaato iyo qurbi ugu helin qaasitan ani isgartay inaan wax qaldan sameeyay Soomaali maxmed idinkana iga raali noqdo arinka dhacay waan ka xumahay wax qorana dhaco wax qadar alle ku dhaceen wax walba haddana aniga Catoosh shal wanaaga isku barna haddana wanaaga ku kala dhamaanay walaalkay waa wax uqdad nooma qabaaniga aniga walaalka ahay waxba kama faa'iideysan maanta dada Catoosha ilka baqda Catoosha dhibaato gaarta Catoosha saad dada waxba kama faa'iideysid horena waxa loo dhahaa hadalheyntu waa sharaf marka taa qof horumaray ma faagtay waxa ilaahay aniga uu ii qoray oo ilaahay habeenka caloosha hooyaday aan galay la ii qoray waxaan ahayn aniga ma helay waxaan ahayn aniga ima soo gaarayn nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban amaqli jiray Catoosh yare iyo maslaxo waxay jihada nooga dhunsheen nagu wareersheen waa ifuriyay iyo ma furin aray waa ifuriyay aray kuma furin ay nagu wareersheen dooli iyo mukulal amal ah ee la isku gaadgaaday ayaantan igaarkii Catoosh yare ahay bariga ha ku soo labistee beledka ku soo aado usugoo he beledka dhax socdo oo he bajaaj dhax fadho maslaxaha meel fog inta ka aragtay fakatax soo tiriyay iyadoo dhag la qabta lahayn oo he sida mootafeek kono kale u gantameen ee igaarka Catoosh yare ahay wuxuu ka war helay yiri maslaxo kudayso he mooto bajaaj oo idana faniinaysa la siman tay igaarka aba ku yiro isku naxay gacantay intii saan u taagatay he mootadii ka soo dhax qabatay yiri mootadii socota baayade aray naag xanaqda xoogahe hirig ay soo siisay mahan ka qabsatay kuleetiga ay la soo baxday laakiin Catoosh horta waxay ga su'aala yaani yahow nin gaaban oo xoog leh oo qamar jahay igula ekaaday waxa ka buuran yaa ma dhareera waa la yaabay mirayba maslaxa gacan kugu soo daftay waxa kugu jiro baaris in loo aado way yaa barkiinta waa iska bararanta moogta waxa ku jiro nasuuf way hal gacan iska dheeray fara inta ku qabatay iyadan weelifa adigu haddaan barkiin baada ka fududaaday haytay soo jooga laga kari waaye soo jibsa ma laga hela eebal maslaxo oo waxa aroostay ahlu dagaal aheed inta is qabteen tan ku bood tan ku faniin tan qabso tan laaytan celcelisad ku jiri jirtay waa furiye ay tiri yahoy furooba minaad rabtaho ma dhahdida ee dalqadeed iska masiisida ha kuugu salada waa la yaabay waa adiga sida salad amal lagu xambaarsan haddaan xad ka dheeftay waa ka saahay waxaan arkay Idris Alteso oo soo qoraayo maslaxo waxay Catoosh yare ku xirtay saldhiga Boondheer yaa saldhiga Boondheer haddaan Maxamed Deeyow maalinka habeenka Jimcada wala gudoomiye uma ahayn gudoomiye hadda waxa ka sugaynaa labadaas qof ee ma aragtay reerka ahay minay hadda reer yihiin waa yihiin minana ahayn waxa laga rabaa halkooda laga rabaa wala adigu haddaan ma bixi jirin cashirada habeenka Jimcada labadaas dhalinyarada intii xafiiska geysid bal xooga u aqli celi maandhay u kaali xaad isku haysatiin xali adaa jimco waxa waaye laga joogi waayo gudoomiyow labadaas haday minay saldhigaa ku soo xirtay runtahay adaa laga rabaa degmadaada ay joogaan Catoosh waxa iga taraa niyahow maslaxa celceli ma kartid naaka dheer way yayna ka tilaabsan maslaxa mugay ka tagta fanka dalaq soo tiri haddaan qamshaar jabiska bixi ma kartid yaa maslaxa iska maslaxa waa la yaabay kuleeti hiri kulaha